madaxweynaha dowladda galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo ay weheliyaan mas'uuliyiin uu ka mid yahay maayarka Dhuusamareeb wasiir ku-xigeenka howlaha guud madaxda mashruuca Nagaad iyo maamulka shirkadda Bruj ayaa ka qayb galay dhagax dhigga dhismaha jidka weyn ee laamiga ah ee dhex mara magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo dib u dhis iyo casriyeyn lagu samaynayo dhismaha wadooyin uu laamigan 26 kiiloomitir noqonaya ku jiro oo lagu hirgelinayo mashruuca Nagaad ayaa qayb weyn ka qaadanaya kobaca dhaqaalaha caasimadda galmudug fududeynta isu socodka dadweynaha iyo bilicda caasimadda madaxa mashruuca Nagaad ee laamigan lagu dhisay ee galmudug Cabdulqaadir Faarax Diiriye ayaa ka warbixiyay mashruucan iyo sida uu noqonayo mashruuca oo ah runtii mashruucyada ugu waaweyn ee dalka ka ka shaqeeya gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ee lagu hormarinayo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed oo magaalada Dhuusamareeb dabcan qayb ka tahay inaad maanta runtii si rasmi ah aad ugu dhagax dhigto aad iyo aad runtii farxad noogu tahay mashruuca oo runtii aan rajeynayno inuu yahay mashaariicda dabcan deesaan soo sheegay ugu muhiimsan ee la rabo kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalooyinka in lagu hormariyo iyo bilicda magaalooyinka dabcan in lagu soo celiyo marka mashruucaas runtii maanta wixii ka dambeeya dhismihii wadooyinka magaalada oo ay ka mid tahay wadadan weyn tahay magaalada dhexmarta iyo 10 wado oo kaleeto oo maxallada ay sheeg magaalada dhexmarta oo ay ka mid tahay ranaboodka gadaashaada ka muuqday runtii madaxweynaha halkan ka muuqday barxadii weyneed ee magaalada oo noqonaysay daljirka daahsoon ee magaalada iyo guud ahaan daljirka daahsoon ee reer galmudug noqon doonta inaad dhagax dhigto hadii Ilaahay uu yiraahdo Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow gudoomiyaha Dhuusamareeb ayaa sheegay in mashruucan uu yahay kii ugu weynaa ee burburkii dawladda dhexe kadib laga fuliyay Dhuusamareeb laamigaani madaxweyne sida ama mashruucaani wuxuu yahay dawladdii hore oo kacaanka Soomaaliya halka ka shaqeey jirtay ka bacdi mashruuci ugu weyn oo reer galmudug ay helaan waa laamigan iyo mashruuca Nagaad hawshiisa marka Ilaahay baa ku mahadsan hawshaas ee noo soo suurta gashay waxaan kaaga mahad celinaynaa hawshan runtii waxay ku timid deganaanshaha dawladeed iyo xasiloonida siyaasadeed oo galmudug ka jirta oo adigu madaxweynaha ka tahay iyo inta kula shaqeynaysay waxaan rabaa halkaan uga mahad celiyo Ilaahay thuma waxaan u mahad celinaa dawladda galmudug oo madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan kaloo u mahad celinaa donoriska iyo wal bangiga oo hawshan noo mahad naga maal gelinayay muddo badan runtii hawshan nala soo waday waxaan codsanaynaa waxa kale oo naga dhiman in loo dhameystiro Cabdiraxiin Macaana Muuse gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Bruj ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin qayb ka noqoshada horumarka galmudug maanta waxa farxad weyn inoo ah annaga Bruj ahaan in aan noqono shirkaddii koobaad ee ku guuleysatay inay infrastructure-ka magaalada ka qayb qaadato oo ah kaabayaasha dhaqaalaha ugu muhiimsan ee wadada ah communication-ka ugu fiican ee magaalada ku tartanta ay leedahay inaan ku guuleysano aadan ugu faraxsanahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud Khalid Cabdi Yuusuf ayaa sheegay in dhismaha laamigan uu muhiim u yahay waxqabadka dawladda maanta waxaan u fadhinaa bilicdii caasimadda oo ay ugu horeyso wadadan oo ay ku xigto wadooyinka yaryar oo ay ku xigto in la sameeyo loo sameeyo magaaladu ay yeelato maab cusub iyo qurux cusub iyo nidaam cusub wax badan baa lagu xantay wargoorma dhaqaaqaysaan waxaan maanta Ilaahay mahadiya inaan maanta diyaar ay u tahay oo Bruj ay bariba ka bilaabi doonto hadii Ilaahay idmo waxaan filayaa bilaha soo socda caasimadda galmudug ee maanta inay si sawir kala yeelan doonto madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa sheegay in 11 wada dhismahood uu laamigani ugu horeeyo wadooyinku waxay qayb ka yihiin bilicdii magaalada ama magaalooyinka waxay qayb ka yihiin nabadgelyada waxay qayb ka yihiin isu socodka waxay qayb ka yihiin dhaqaalaha waxa weeyaan halka lagu soo koobi karo nimada ay noo leedahay runtii waxay noo tahay maantay waa cusub oo reer galmudug u bariyay gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda jidka weyn kaliya maahan jidku waa u horeeya waxaan ognahay ama wada ogtihiin 11 jid ee magaaladan laga dhisi doona insha Allah oo u horeeyo wadada weyn u horeyso oo mashruucan ku jira waxaan leenahay bulshada reer galmudug gaar ahaan caasimadda maamulka iyo shacabweynaha caasimadda in gacan laga siiyo lagu garab istaago kambaniga shaqada haya oo ay shaqadooda u gutaan sida ugu habboon dhismaha laamiga weyn ee Dhuusamareeb dhexmara ayaa la filayaa inuu sare u qaado horumarka iyo isku xirka magaalada isagoo wax weyn ka taraya kobaca dhaqaalaha fududeynta socodka gaadiidka iyo kor u qaadista bilicda caasimadda Cabdullaahi Warsamroble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb